waxaa dhawaan deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho laga hirgeliyay dugsi quraankii abid ugu weynaa geyiga Soomaaliya. Dugsigan quraanka kariimka xifdintiisa iyo barashada culumta islaamka ilaa dugsiga sare waxaa aas-aaskiisa uu qaatay muddo 5 sano ah oo dhismaha dugsigaasi uu ka socday deegaankaasi. Sheekh Maxamuud oo Cabdul Cariif oo kamid ah culimada diinta islaamka aadka loogu qadariyay ee geyiga Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay in dugsigan uu hadafkiisu yahay soo saaridda ubad fahansan macnaha nolosha iyo quraanka kariimka iyo culumta iyo shuruucda islaamka. Sheekha oo sharaxaya qaabka ay u shaqeyn doonaan iyo hadafka guud ee aas-aaska madrasadan islaamiga ah ee ceelasha biyaha uu ka hirgeliyay ayaa waxa uu yiri: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام هدل وحان مارتي تاغنهي مؤسسة وين أولي دار القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والمادية وقطع بلاد كمقالة مقدشو قارعان عيرش بيها أقاقار كذا dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo dalka dibad ku nool ayaa waxaan doonaynaa inaanu la wadaagno muassasadatan waxa ay tahay. muassasadatan waxaa la aasaasay 2014 ayaa la aasaasay oo la bilaabay shaqadeeda. waxayna howl gashay oo shaqo bilowday bishaan haatan aynu ku jirno bishii ka horeysay oo waxa weeye sanadkii tegay bishii 12aad ayaa hawsheedu bilaabatay waxbarashadeeda. muassasadan muassasa weyn weeye, waxay kulminaysaa dhowr culuuma ayay kulminaysaa. waxaa lagu baranayaa quraanka kariimka ah oo ardayda la xifdisiinayo qadar oo gaaraya 2 sano iyo waxaan ka badnaynin. ayaan doonaynaa inuu ilmuhu ay noqdaan xufaad ay quraanka ku noqdaan. hadda galaaskan aynu joogno wuxuu ka mid yahay galaasyada boardingka ah oo ardadu yaryarka ay ku baranayso quraanka. way xifdinayaan ilaahay hadduu yiraahdo. waxay kaloo baranayaan culumta islaamka ayay baranayaan, tarbiyada ayay baranayaan, tarbiyatul islaamiyya baranayaan. waxay baranayaan maadooyinka nidaamiga ah oo dugsida maaragtay hoose dhexe iyo sare. waxay u gudbi doonaan insha allahu tacaala oo muassasadanu ay kulmisaa oo ka kooban jaamacad oo takhasusaad fara badan iska leh ayay u gudbi doonaan. caruurtan garbaheena taagan hadda aad arkaysaan insha allahu tacaala. hadda galaaskan iyo galaasyo kale inta ku jirta iyo mustaqbalka soo socda waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay maaragtay Soomaali ay maaragtay wax badan ay ku nacfi doonaan oo wax wanaagsan awlaadoodu ay bara doonaan adduunyo aakhiraba inay faa'iidi doonaan. dalka dibadiisa iyo gudihiisa ayay u furan tahay. waxaa jooga dad gobolada ka yimiday, dad maaragtay banaadir degan, dad koonfurta degan oo dhan. muassasadu marka waxa weeye saasay muassasa weyn u balaaran ay tahay. waxay lahaa doontaa qaybta culumta islaamka lagu barto oo maaragtay xalqada aanu maaragtay markeena horeba qaadno ka soo baxnay oo kitaabada cilmiga loogu akhriyo dadka waaweyn ayay yeelan doontaa. qayb maaragtay dumarka ah gaar ahaan gabdhaha ayay yeelan doontaa. welina waa hawshaas waa ay socotaa. marka waxaa kaliya oo aan maaragtay halkaan soo istaagnay inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay nala wadaagaan oo nala arkaan oo qofkii doonaya inuu maaragtay meeshan xaaje uu ka yeesho awlaadiisa uu keeno si uu maaragtay uga faa'iideysto darajada tan iyo maqaamkan muassasada ay leedahay. waxaan u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay insha allahu tacaala ka faa'iideysan doonaan awlaadda maaragtay in maaragtay la baro علومتا نوع كسو اي تهي حقوق اي نقوليه ويه
meeshaan waxay leedahay adeeg fara badan ayay iska leedahay. carruurta waxaa weeye subaxdii 2 jeer ayay quraacdaan, waa ay qadeeyaan, waa ay casheeyaan. jiif ayay leedahay, meeshaan jiifaf ayay leedahay. nadaafadooda ayaa laga shaqeeyaa, caafimaadkooda laga shaqeeyaa. wax kasta oo bani aadamku uu tari karo ayaa maaragtay meeshaan aynu ku tarnaa. meeshaan ilaahay anagoo alla tala saaranayna intaas ayaanu ku fikirnay inaan maaragtay muddo fara badan anagoo ku soo jirnay. hadda oo la soo gaaray waqtiga nafcigeedina dadka Soomaaliyeed oo walaalaheena muslimiinta ayaan u sheegaynaa. meeshaan meel shirkad ah oo dad dhan ka dhaxaysa ma ahan. alxamdulillah ilaahay anagu nagu garab siiyey. haddana insha Allah tacaala dadka walaalaheena muslimiinta Soomaaliyeed inay dadkooda wax u bartaan ayaan diyaar u nahay, ku dadaalno, kunaan soo dhaweyno. waxa weeye meeshaan waxa weeye meel guud ahaan magaca koray iska leedahay, waxaa la yiraahdaa xadiiqatul xarameyn ayaa la yiraahdaa. meeshaan meel xadiiqadu weyn weeye oo maaragtay dhererkeedu uu la egyahay 800 oo mitir uu la egyahay, balaceeduna uu la egyahay 100 mitir iyo 2 wado oo ku dhex taala ay tahay. waxay leedahay qayb kale oo maaragtay xagga siyaaxada ah ama waxa dalxiiska loo yaqaano carruurta ay ku madadaashaan iyo dadka xataa noo yimaada oo hadda maaragtay kaamirada aanan ku haynin. faa'iido fara badan ayaa mustaqbalka loo rajaynayaa. waxaan leenahay maaragtay carruurtan maaragtay ilaahay idinkiisa waalidadoodii way keeneen, meel walba laga keenay. haatan waxa weeye maaragtay isqoridii way socotaa, weli ma aysan buuxsamin. hadda waxaa diyaar loo yahay in la qabto dhowr boqol la qabto ilaa 300 400. wixii intaas ka soo harana waxa weeye ayagana waa loo siyaadi doonaa. hadda waxaanu haysanaa dhul balaaran ayaanu haysanaa oo wax kasta lagu waasici karo. marka waxaan maaragtay aan u qabanay barnaamijkan ama aan maaragtay dadka u tusaynaa baraha bulshada inay ka faa'iideystaan, ay ogaadaan waxa meeshan ka jira. waxaana rajayn doonaa insha Allah tacaala maadaama annaga waxaanu ilaahay dar allaana u qabanaynaa hawshaan. ilaahay daraadiisay naga tahay, maadaama kitaabada quraanka cilmiga la akhrin jiray, quraanka dadka la bari jiray, in haddana qaab maaragtay casriyeysan dadkii diinta loo baro. waxay leedahay mucallimiin badan ay leedahay oo aad iyo aad maaragtay aqoon u leh oo jaamiciyiin hadda xataa iyagoo quraankii dadka barayay jaamiciyiin shahaadooyin fara badan haystaan. insha Allah tacaala dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa inay maaragtay guul ay u tahay, iyadoo cid kasta oo Soomaaliya lagu soo dhaweeyahay dalka ku noolaato dibadda ku noolaato cid walba ay u furan tahay. cid ka reeban oo Soomaalihu meeshaan ma jirto. waa wax mujtamaca dhan u dhaxeeya. wixii maaragtay faahfaahin ah oo shuruudo ah oo kale oo waxbarashada iyo waalidka iyo wax walba ku tacalluqana xafiis weynaa meeshaan ku yaalo maamul iska halkaasaa la imaanayaa. kaas baa laga faa'iideysan doonaa insha Allah tacaala. intaasaan ku soo koobaynaa. cid walba way fahmaysaa wixii la yiraahdo. intaasaan ku soo koobaynaa. hada wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.